asalaamu calaykum daawadayaal muuqaalkani waa kulankii dhex maray xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka antonio blinken iyo dhiggiisa dalka turkiga mafled kafsalagu ayay maalinimadii shalay ahayd u bilaabatay booqasho 3 maalmood oo rasmi ah oo shaqo uu ku joogo dalka maraykanka. tegitaanka wasiirka arrimaha dibadda turkiga dalka ayaa waxa uu ahaa miduu dowladda maraykanka baarlamaanadeeda cusub kala xaalayo sababta ilaa iyo hadda ay dowladda maraykanka ugu soo gacangelin la'dahay qalabyada dayactirka ee diyaaradda loo yaqaano F-16 ugana iibin la'dahay diyaaraddaasoo cusub xilli ay labada dowladood bay yihiin kuwo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO. inkastoo toddobaadkii lasoo dhaafay aqalka sare ee baarlamaanka dalka maraykanka uu sheegay inay furan tahay in diyaaradaha laga iibiyo dowladda turkiga, haddana ma ahayn go'aan rasmiya uu baarlamaankaasu soo saaray. sidoo kale amarka kabadamaynta ayaa waxaa iskale madaxweynaha dalka maraykanka Joe Biden oo isagu indhawaalaba u muuqday mid ka soo horjeeda dowladda turkiga. wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga oo warbaahintu weydiisay sababta diyaaradaha loo siin waayo waxa uu sheegay haatan maraykanku inay u muuqdaan kuwa isku xiraya iibinay ka iibiyaan diyaaradaha dalka turkiga iyo oggolaanay dowladda turkigu oggolaato in dowladaha Sweden iyo Finland kusoo biiraan gaashaanbuurta NATO. waxa uu sheegay arrintan inay tahay mid aanay maskaxda carruurta oggolaan karin, labada arrimoodna ay yihiin laba waxyaabood oo aan shaqo isku lahayn. dowladda maraykankana aanay khusayn turkigu cidduu u oggolaanayo inay gaashaanbuurta ku soo biirtay iyo cidda kale. sidoo kale waxaa la weydiiyey dowladda turkigu siday u aragto go'aanka dowladda maraykanku ay ku doonayso inay kaga iibiso dalka Giriiga oo ay sayaan diyaaraddii hore turkiga ay ugu diideen F-35. waxa uu kafsalagu kaga jawaabay su-aasha indhawaalaba dowladda maraykanku inay ka soo horjeeday dadka turkida ah, si buuxdana ay u garab taagnayd dowladda Giriiga. waxa uu sheegay arrintaasu indhawaalaba inay ahayd mid cadow muuqata, dowladda maraykankuna ay sidaa go'aansatay. ujeeddada ay ka leedahayna iyadoonu ay garanayso. mar kale waxaa la weydiiyey sida dowladda turkiga u aragto cunaqabatayntii hubka ahayd ee dhowaan dowladda maraykanku ka qaaday qubrusta Giriiga ah, iyadoo cunaqabatayn ay saaran tahay aqoonsina aanay haysan qubrusiyiinta turkiga ahi. waxa uu sheegay tanu inay tahay calaamad kale oo muujinaysa in dowladda maraykanku ay diyaar u tahay in la laayo dadka turkida ee ku nool jasiiradda qubrus, maadaama haatan ay u oggolaatay inay hubka iibin karto. arrimahan oo dhan ayuu sheegay inay yihiin kuwa dowladda maraykanku ay turkiga kaga soo horjeedo. waxa uu sheegay warbaahinta sida iyaguba u dareemayaan in dowladda turkiga iyo madaxdeeda u dareemayso dowladda maraykanku inay ama diin ha noqoto ama si kaleba ha noqotee doorato inay dowladda Giriiga la jirto. balse waxa uu sheegay arrimahaasu inaanay ahayn kuwo waxba ka qaadi karaya dowladda turkiga iyo mawaaqiifteeda. waxa uu sheegay dowladda turkigu inay maraykanka uga baahan tahay xiriir wanaagsan ay wada yeeshaan, balse aanay jirin baahi weyn ay u qabto, mid walibana uu mari karo waddadii uu isagu doortay. kafsalagu waxa uu sheegay haddii dowladda maraykanku diyaaraddeeda ka iibin weydo inay jiraan dalal kaloo diyaar u ah inay iyagoo ku farxsan ka iibiyaan. daawadayaal, dowladda ruushka ayaa la sheegay inay kordhisay ciidamadeeda ka dagaalamaya gudaha dalka Ukraine. tirada ciidamada ayaa horraantii lagu waday inta u dhaxaysa inay yihiin 200 ilaa 250 kun. haatanse waxaa la caddeeyey tirada inay gaarsiisay 340 kun oo askari. dowladda ruushka ayaa indhawaalaba qabanqaabinaysay qorshaheedii ahaa duulaan weyn ay ku qaado dalka Ukraine, waxaana indhawaalaba ay qaabeynayeen saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ruushku dagaal weyn ay ku qaadaan Ukraine, iyadoo arrintaa laga dareemayay dowladda Ukraine iyo dowladaha reer galbeedka ah oo iyaguna indhawaalaba ku mashquulsanaa sidii ay hub dheeraada ugu heli lahaayeen dalka Ukraine. ciidamadan lagu siyaadiyey kuwii ka dagaalamayay dalka Ukraine ayaa waxay yihiin qaybo ka mid ah ciidamadii tiradoodu ahayd 300 kun oo askari oo hore madaxweynaha ruushka u amray in loo diyaariyo inay ka dagaalamaan Ukraine. mar walbo aynu aragno in ciidamo dheeraada gudaha dalka Ukraine loo soo dirana waxaa soo dhowaanaya dagaalka weynaa ee la sugayey. madaxweyne Vladimir Putin iyo dowladdiisaba waxaa ka go'an inay dalka Ukraine ku qaadaan duulaan aad u weyn, kaasuna uu noqon karay kaga adkaanaya Ukrainiyiinta. ma jirto wax kaloo qancin kara Vladimir Putin inuu ka adkaado Ukraine maahane. in dagaal weyne dhacayana waa mid la iskaga raacsan yahay bari iyo galbeedba. Ukrainiyiinta ayay niyad-jab weyn ku noqonaysaa marba marka ka dambaysa ay sii arkaan ciidamada ruushka oo soo badanaya.
iyo iyagoo aan haysan hal warshadoo hub u soo saarta. hubka ay ku dagaalamayaanna uu yahay gebigiisuba mid ay dowladaha reer galbeedka ka baryaan. daawadayaal, wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka Sergey Lavrov waxa uu mar kale ku celiyey in haddiiba dowladaha Sweden iyo Finland ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO ay dowladda ruushku weerar ku qaadi doonto. waxa uu sheegay arrintaasu inay noqonayso mid aan laga labalabayn. waxa uu sheegay dowladda ruushku inay isku raacsan tahay in ciidamadeedu ay ka gudbi doonaan soodinta dhererkeedu ka badan yahay 1340 kilomitir ay wadaagaan dalalka ruushka iyo Finland. dowladaha Sweden iyo Finland ayaynu waxaynu ognahay inay yihiin daawadayaal kuwa aan lahayn wax tabar oo military, kumanaankiisana u dambeeyena ma ahayn kuwa ka mid noqday gaashaanbuurro dagaal. haatanse waxay sheegeen markay arkeen siduu u dhaqmayo deriskooda bariga ahi inay lagama maarmaan ku noqotay dalalkaasu inay ku biiraan ciday isleeyihiin waxaad ka heli kartaan damaanad qaad amni. balse damaanad qaadka amni ay doonayaan dowladaha Finland iyo Sweden ayaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo bilowgii dhammaadkooda, maadaama dowladda ruushku sheegtay inay weerarayso haddiiba ay ku biiraan NATO. gaashaanbuurta NATO iyo dowladaha reer galbeedka ah ayaa iyagu wixii ka dambeeyey markii ay dowladdii midooda Sofiyeeti meesha ka baxday ku durkayay bariga qaaradda Yurub, iyadoo intii aanay dowladdii midooda Sofiyeeti meesha ka bixin ay jirtay ballan u dhaxaysay galbeedka iyo bariga, taasoo ahayd inaanay dowladaha reer galbeedka Poland bariga usoo dhaafi karin. balse markii dowladda Maraykanku hogaamisa gaashaanbuurta NATO aragtay dowladdii uu heshiiskaasu kala dhexeeyey inay meesha ka baxday, waxay bilowday durkaan dhanka bariga ah. waana kuwa haatan dowladda ruushka soodin kala wadaaga dowladaha saddexda ee loo yaqaano Baltiga, kalena ah Estonia, Lithuania iyo Latvia. haatanna waxay doonayaan inay ku darsadaan soodinta ruushka ee nabadgelyada ee waqooyiga marba haddii ay ku biiraan dowladaha Sweden iyo Finland. sidoo kale waxaynu ognahay koonfur bari inay doonayaan inay ku darsadaan dalka Ukraine gaashaanbuurta NATO iyo weliba midowda Yurub. taasuna waa mid khatar weyn gelinaysa amniga guud ee qaran ee dalka ruushka. daawadayaal, dowladda Maraykanku waxay bilowday in bakhaarra hub ugu xiraysan yahay ee ku yaalla maamulka baadilka ku dhisanaya Yuhuudda ay hub ka siiso dowladda Ukraine. dowladda baadilka ku dhisanaya Yuhuudda iyo dowladda Maraykanka ayaa caddeeyey inay arrintaasu jirto, ayna jiraan bakhaarro waaweyn oo ay maamulka ku leedahay hubna ugu kaydsan yahay. dowladda Maraykanku waxay sheegtay in dhawaalaba Yukraaniyiintu inay dalbanayaan hubab dheeraad ah. hubabka qadiimiga ay Yukraaniyiintu isticmaalaan ee dowladdii midowda Sofiyeeti samaysana ay yihiin kuwo bilaa rasaas ah. dowladda Maraykankuna waxay sheegtay bakhaarro ay halkaa ku leedahay inay amartay in laga siiyo rasaasta. balse arrintan ayaa waxay noqon kartaa mid been ah. waxaynu ognahay madaxweynaha Yukraaniyiintu inuu yahay nin Yuhuudi ah, in dhawaalana maamulka Yuhuudda ee baadilka ku dhisan uu ka codsanayay inay taageeraan. haatanna ugu dambeyn maamulka Yuhuudda uu go'aansaday kadib markii uu xukunka dib ugu soo noqday ninkii madaxa adkaa ee lagu magacaabi jiray Benyamin Netanyahu inuu Yuhuudiga garab siiyo si aanay uga shakiin arrintaa dowladda ruushka oo dagaal kala dhexeeyo Yuhuuddana oo ay ku dagaalamayaan gudaha dalka Suuriya. waxay maamulka Yuhuuddu gabaad ka dhigteen dowladda Maraykanka oo aynu ognahay inay tahay mid ay u taliyaan. dowladda Maraykankuna waxay dusha ku qaadatay eedda, waxayna sheegatay hubka maamulka baadilka ku dhisan laga soo daadguraynayo inuu yahay mid ay iyadu iska leedahay. balse waxaynu qiyaasaynaa in maamulka baadilka ku dhisan ee Yuhuudda uu taageerayo Yuhuudiga Ukraine haysta, hubkaasuna uu yahay mid ay iyagu siinayaan. waxyaabaha aadka loola yaabo daawadayaal waxaa ka mid ah hubka halkaa u yaalla dalka Maraykanka. mar la weydiiyey sababta ay u dhigteen, waxay sheegeen inay ugu talagaleen inay kula dagaalamaan dowladaha ku yaalla bariga dhexe, oo dabcan ay ula jeedaan dalalka islaamka ah. sidoo kale waxay sheegeen hubkooda in maamulka baadilka ku dhisan ee Yuhuuddu isticmaali karo haddiiba dowladaha carabta soo weeraraan. waxaa halkaas si cad inooga muuqatay in Maraykanka iyo Yuhuudda ay u dadaalayaan sidai u badbaadi lahaayeen nafaha Yukraaniyiinta, balse ay hubo meel u dhiganayaan sidai u baabi'iyaan dadka muslimiinta oo iyagu ilaa haatan ah kuwa aan ku baraarugsanayn waxa adduunka ka dhacaya, dhiigooduna uu yahay midaan qiimo lahayn cidna isweydiin. daawadayaal, kuwani waa saraakiisha ugu sarreeyey ciidamada kala duwan ee gebi ahaanba dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO oo habeennimadii xalay ku kulmay magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka oo sidoo kale caasimadna u ah gaashaanbuurta NATO. gebi ahaanba ciidamada kala duwan madaxdooda ay leedahay dowlad kasta
oo ka tirsan gaashaanbuurta nato ayaa halkaa marayey. kulan saacado u soconayay kadibna ma ay jirto waxay ku heshiiyeen haba yaraatee. saraakiisha militariga ah oo dowladahoodu ay ku bixiyaan bil walba bajad madaxaagu diidayo ayaa iyagu isku raacsan inaanay gaashaanbuurta nato u bareeri karin dagaal foolka fool ay ku qaado ruushka. horey hadallada noocana waxaynu uga maqli jirnay siyaasiyiinta iyo madaxda reer galbeedka, balse waa markii ugu horraysay aynu ka maqalno askari isaga 50kii sannadooda u dambaysaba loo soo tababarayey inuu u dagaalamo dalkiisa maalintii xaaladdu ku ciirsan tahay. haatanna madaxda ciidan ee dowladaha kala duwan ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta nato ayaa isku raacsan sidaa. mana aha kuwa doonaya xilligan inay ruushka la dagaalamaan. taliyo walbo halkaa ka hadlayey marka la weydiiyo sababta ciidamadiisu ay diyaar u noqon waayeen, waxa uu sheegayaa si ama si kale inay cillad farsamo u haysato. waxaa jira dowlado iyagu sheegtay 40kii sannadooda u dambaysaba ciidamadoodu inaanay dagaal gelin, mid walibana ay u baxday calool 2 jeer jirkiisa ka weyn. haddiiba la doonayo haatan inay dagaalamaanna baahan yahay muddo dheer oo dib loo tababaro amaba la qoro ciidamo hor leh. daawadayaal, taliyayaasha sare ugu sarreeya ciidamada dalalka kala duwan ee gaashaanbuurta nato iyo siyaasiyiintooda ayaa haatan isku mid noqday. ankii aragtida wejiyadooda marka aad fiiriso ma dareemayso shakhsiga kuu muuqdaa inuu yahay mid ciidan ah. waxay isu salaamayaan sidii madaxdii, waxay isa siinayaan hab. sawaxanka meesha ka yeerayaana waa mid meel ay isugu yimaadeen ciyaalo suuq oo kale ah. waxaadanba garanayn waxaad ku tilmaanto. haddana muuqaalkaa idiin muuqda ma jiro sarkaal sare oo ka maqan oo dalkiisu gaashaanbuurta ka tirsan yahay, ankee marka lagu daro dowladda muslimka ee turkiga oo iyada aynu ognahay mowqifkeedu inuu yahay mid cad. ayaan marnaba doonan in gaashaanbuurta nato dagaal ay ku qaado ruushka xilli ay weliba qayb ka tahay gaashaanbuurta, balse dowladda turkigu waa tan keliya mowqifkeeda caddaysay, sheegtana inaanay wax ixtiraamaba ku haysan gaashaanbuurtan. ay tahay mid ay samaysteen reer galbeed iyo kirishtaan, iyaguna ay yihiin kuwa diintooda iyo dhaqankooda lagu cunsuriyadeeyo. isku soo wada duuboo saraakiishii ciidamada reer galbeedkuna haatan waxay noqdeen kuwo la mid ah siyaasiyiinta dalalkooda. gaashaanbuurta nato iyo dowladaha reer galbeedka ayaynu odhan karnaa daawadayaal waxaa la soo gaaray bilowgii dhammaadkooda. daawadayaal, waxaan idiin kala baxayaa sawaxanka ka yeeraya saraakiisha ugu sarreeya ciidamada kala duwan ee nato. haddana muuqaalkaa idiin muuqda ma jiro sarkaal sare oo ka maqan oo dalkiisu gaashaanbuurta ka tirsan yahay, ankee marka lagu daro dowladda muslimka ee turkiga oo iyada aynu ognahay mowqifkeedu inuu yahay mid cad. dowladda ayaan marnaba doonan in gaashaanbuurta nato dagaal ay ku qaado ruushka xilli ay weliba qayb ka tahay gaashaanbuurta, balse dowladda turkigu waa tan keliya mowqifkeeda caddaysay, sheegtana inaanay wax ixtiraamaba ku haysan gaashaanbuurtan. ay tahay mid ay samaysteen reer galbeed iyo kirishtaan, iyaguna ay yihiin kuwa diintooda iyo dhaqankooda lagu cunsuriyadeeyo. isku soo wada duuboo saraakiishii ciidamada reer galbeedkuna haatan waxay noqdeen kuwo la mid ah siyaasiyiinta dalalkooda. gaashaanbuurta nato iyo dowladaha reer galbeedka ayaynu odhan karnaa daawadayaal waxaa la soo gaaray bilowgii dhammaadkooda. daawadayaal, waxaan idiin kala baxayaa sawaxanka ka yeeraya saraakiisha ugu sarreeya ciidamada kala duwan ee nato. waxaad moodaysaa goobtaba inay tahay goobay isugu yimaadeen dad ciyaalo suuqihii. maxayse adiga kula tahay daawade? dowladaha reer galbeedka haddii ay u baaba'een siyaasad ahaan, haatanna ciidamadoodu si buuxda ay u sheegeen inaanay dagaal geli karin xilligan, ma kula tahay in la soo gaaray xilligii ay meesha ka bixi lahaayeen? fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab commentiya. mahadsanid.